shirkadda qodidda ceelasha ee Somdrill ayaa soo gabagabaysay isla markaasina wareejisay ceel riig biyood ah oo muddo 6 cisho ay shirkaddu ku qoday waxaana ceelkani shirkaddu kala xidhay biyaha qadhaadh iyo kuwa macaan kaasi oo sababay inuu noqdo ceel biyihiisu aad u macaan yihiin ceelkani ayaa noqonaya ceelkii 8aad ee shirkaddu ka hirgeliso deegaanada gobolka Sanaaga waxaana laga hirgeliyay deegaanka Geesa Jiifeen ee duleedka magaalada Ceergaabo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo madax dhaqameed waxgarad iyo haldoor kale ayaa ka soo qayb galay dhamaystirka ceelkaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay injineer Cabdixakiin Siciid Barre oo ah mulkiilaha shirkadda Somdrill بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محدله مركا وجوه الرئيسة وحان ألكن وجم هاد علينا مرتدا شركة Somdrill ما أنت ألكن نقصه بوقتي عيل كان ما أنت وعيل كيس الديداد شركة دو أي قسم يسي قبل كسناق دمان عيل شا ويكوجو ليستي شركة دو ceelkani wuxuu kaga duwan yahay ceelashii hore waa ceel biyihiisa aanu kala xidhnay arintaasi kaliya guulu ma aha gobolka Sanaag iyo shirkadda Somdrill waxay guulu tahay Somaliland oo dhan iyadoo ay jiraan dhul aad u ballaaran oo biyo looga baahan yahay biyo qadhaadhna dadku ay cabaan farsamada iyo guusha ceelkan maanta aanu gaadhnay ee biyihii qadhaadha iyo biyihii macaana aanu kala xidhnay oo biyihii macaana maanta ceelka laga cabi doono ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ceelkan markii hore shirkadda qaybteeda biyo baadhista Somgeo ayaa baadhay goobtana istaagtay ceelkana waxaanu qodnay 307 mitir sidii baadhista markii hore aanu ku ogaanay biyaha qaybta sare inay qaraar yihiin qaybta sare hoosana ay macaantay shirkaddu waxay develop garaysay istaraatiijiyad biyahan qaraar lagu xiro biyaha macaanna lagu gaadho kaligood ay soo baxaan wana guusha maanta shirkaddu ay gaadhay oo biyahan EC-goodu wuxuu ahaa 4000 iyo ziyaado maantana waa 900 ilaa 950 EC-goodu runtii waa guul weyn ceelka intii aan la bilaabin ka hor waxa weeyaan ayaanu kiimikadan ku shubnay waa kiimikadan ceel ku kala xidhnay aan ku shubnay caagadan waana daloolinay biyihii lagu shubay maalintii waa kuwa halka taagan ilaa maanta halkii bay taagan yihiin waa tusaale cad bay u yihiin ceelka saan u kala xidhnay sidoo kale waxa ku jira halkan waa kiimikadii aan ceel ku kala xidhnay bahashani hoosta way ka dalooshaa biyaha xagga sare kaga jira biyahaasna marna hoos u dhaadhici maayaan ceelka waxaan sameynaynay si aanu u hubinno meesha lagu gaarayo biyaha qadhaadh iyo biyaha macaan 2 mitir kasta waxaanu ka qaadaynay sample ciida sidoo kale 2 mitirba waxaanu ka qaadaynay biyahaas oo aanu cabiraynay kolba intay isbedelayaan processkaas iyo injineeradii ceelka dul taagnaa ilaa maalinkii la bilaabay ilaa maalinkii la dhameynayay guud ahaanna shaqadu waxay qaadatay 6 cisho maalintii shaqada la bilaabay ilaa maalintii la dhameeyay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan doonaynaa tajribadan iyo tusaalahan inaan ku faafino dhammaan gobolada Somaliland ceelashoodu biyaha sare ay qaraar yihiin si loo gaaro biyaha macaan aad iyo aad dad mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وحان أمهد علينا يا حول وذينا ذا الشركة Somdrill إنجنير هذا يعاوي ياشا لما انشق علىها الشركة آديات بان وقوم هاد نقيا أن وشدد وحويان إنا نقول كقاد نبي صارك ما أنت هرت هالكن وحي نكنا أنا وام هاد نقوي وحن آديات وقوم هاد نقيا أنا جوكوا الله يمقع هذا كان الله iyo shaqaalaheedaba meel kasta ay joogaan shirkadda la yiraahdo Somdrill oo ceelkan uu yahay ceelkii 8aad isla markaana ku guuleysatay biyihii qadhaadha iyo biyihii macaana inay kala xidhaan waana runtii tayo iyo farsamo ku cusub Somaliland weeye farsamooyinka noocaasna waxay noogu dambeysay
xilligii dawladdii hore ee dhexe Soomaaliya ayaa inoogu dambeysay aad iyo aad baan shirkadda u salaamayaa farxad weyn bay noo tahay maanta in Ceergaabo hareeraheeda biyaha macaan ee aad arkaysaan halka ka dhacaya laynooga bilaabay oo laynooga daahfuray ceelkii koobaad waxaan rajaynayaa in aanu noqonin kii ugu dambeeyey oo uu noqdo kii ugu horreeyey insha Allah dad kale oo fara badan oo ganacsato ahina inay ku dayan doonaan insha Allah waa guul iyo wax wanaagsan oo soo kordhay magaalada waa wax wanaagsan oo soo kordhay shacabka iyo dadka deegaankan degan ee ka faa'iideysan doona iyo guud ahaan magaaladaba oo mahad celinaynaa ganacsadaha Yuusuf Cabdi Jaamac Tirike oo runtii wax weyn oo maxaan ku raahdaa muuqda oo haddii la ku roon yahay la intifaaci doono sanadaha soo socda ka hirgeliyay magaaladan Ceergaabo ganacsigiisa horena uga shaqayn jiray haddeerna dhinacan uu u beeray maxaan ku raahdaa wax soo saarka biyaha runtii wuxuu wax weyn ka tari doonaa dhinaca maxaan ku raahdaa wax soo saarka beeraha iyo tacabka beeraha guud ahaan gobolka gaar ahaan degmadan Ceergaabo iyo dadka ku nool wax badan buu tari doonaa oo uga mahad celinaynaa runtii ganacsadaha waxaana leenahay ilaahay ha u barakeeyo maalkiisa ilaahay ganacsigiisa ha u barakeeyo ilaahay biyaha uu soo saaray ha u barakeeyo dhammaanteen aanu ka faa'iideysanno oo waxa weeyaan biyaha iyo tacabka reer Ceergaabo beeraha runtii waxa weeyaan dhulkeena waa dhul fertile ah oo ganacsiga khudaarta ku wanaagsan wax beerista ku wanaagsan in dhulka wax lagala soo baxaa oo tacab la geliyaa waxa weeyaan waa arrin dadkoo dhan u baahan yihiin Soomaaliland oo dhan baa u baahan oo maanta halkan laga soo dalbanaya khudaartii innaga si gaar ah ugu baahan marka waxaan leeyahay laga faa'iideysto biyaha dhow ee Ceergaabo ay leedahay aan dhulka kale lahayn waqlashan ceelkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuh salaanka bacdi waxaan leeyahay arrinkan ceelkan lagu allabariyay waxay ka u turjumaysaa in dhulkeena nimco jiifto kelmadii ahayd dhulkeena nimca fadhida ayaa la xaqiijiyay waxaan leeyahay ganacsatada gobolka Sanaag waa aragtaan ku dhiirada shirkaddan Samdareen shirkadaas waa shirkad weeye waxaan leeyahay Soomaaliland shirkadda waa shirkadii ugu heerka sareysay tacab badanna dalka gelisay wax badanna ka qabatay waxa weeye runtii waxaan leenahay mulkiilaha shirkadda ilaahay ha u barakeeyo ganacsadaha ceelkan geliyay maalkiisana waxaan leeyahay ceelka ha ku barakeeyo meeshanu meel biyala abay ahayd dadku Ceergaabay ka soo dhaansan jireen waxa weeye maanta ummad dhan baa ku faraxday waxaan leenahay ilaahay ceelka ha ku barakeeyo wax badan baad qabatay saadabadeed mahad ilaahay ba iska leh mahad labaad waxa iska leh qofkii ilaahay ku ilaahamiyay ee gartay haddii ilaahay wax siiyay inuu dhulka wax kala soo baxo biyuhu waa laba biyo kuwana waa kuwa cirka jooga oo inooga yimaado xilliga roobka waa kuwa geedaha ay noo soo saaray kuwana waa kuwa dhulka hoostiisa ku jira ee saaka horteena ka shubmaya oo hanti la geliyay lagula soo baxay haddii aan hanti la gelin ma soo baxeen marka waxaan leeyahay Yuusuf Cabdi Tirike oo ah hantiilaha mulkiilaha ceelkan maanta aynu dul fadhino oo lacagtiisii geliyay oo aaminay ilaahay u barakeeyo marka hore aamin waxa uu ka damcay ama ka doonayo ee dhulka uu kaga rabo inuu kaga biyeysto iyo sadaqad wixii uu kaga baxayba Allah u aqbalo waxaan leeyahay ilaahay baa quraan ku yiri wajacalna almaa kulla shay'in hayya biyuhu shay walba nolol buu yihiin shay walba oo jira nolol buu yihiin marka iminka siirkii iyo la yiraahdaa siirkii siir xun baa inoo yimaado oo ma baxo biyalaan buu bixi waayo oo baxaya biyo loo helo uu baxaya waliba waynu garanaynaa sida wax loo beeran jiray marka way baxayaan barwaaqa badan baa ka soo baxaysa wax sadaqad loo bixiyana waxa la yiri waxa ugu xoog weyn sadaqad la baxana biyaha la yiri biyaha ninkii sadaqadaysta kolka isaga hadeer dacda hadii laga cabo sadaqad bay u tahay xoolo ka cabaan ama eedu ka cabto waxa wax loo dhigo la heli maayo isagu qiimahaas uu shaqaystay ilaahay u barakeeyo innagana inuu soo geliyo sidaas oo kale Allah inoo siiyo waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga maanta halkan nimcada marka la qiyaas la qiimeeyo durdur xareeda waxba lagu qiimeeyo waxay kaas durdur xareeda horteena socdee nimcada Allah inoo barakeeyo isagana Allah u barakeeyo mulkiilaha shirkadana Allah u barakeeyo dareelkan halka ka shaqeynaya maanta qoladan waxay sheegtay inay biyo kala xidheen oo waanu kala xidhi doonaa insha Allah waa idin soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum ceelkan Yuusuf Cabdi Tirike ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa mulkiilaha iyo shirkaddan
qoday ceelkan ee ku guulaysatay aniga laba farxadood bay ii tahay markii ay heshiinayeen shirkadda iyo mulkiiluhu maraggii la joogay baan ahaa ee qoraalkana aan kaga qorahay inaan marag ka ahay mulkiilaha yuusuf cabdi tirike wuu dhiiranayey laakiin ceelasha khibrad kama haysan oo markaa shirkadda ay wada hadleen shirkaddu waxay sheegtay horta sahanka biyaha shirkaddaa samaysay samdareen iyagaa sahmiyey iyagaa sheegay in halkan biyihii ay ku jiraan oo laga helayo markii ay markaa sheegeen biyihii oo sahankii soo dhammeeyeen waxay noqotay inay heshiiyaan oo markaa ceelkii ay ka heshiiyaan su-aalaha la iswadaarsaday shirkaddu waxay sheegtay in biyihii meesha joogaan laakiin biyuhu inta ay leegyihiin ma sheegin dee maa sheegi karra idhahay intay biyuhu leegyihiin maanu sheegi karro laakiin biyo waanu haynaa markii ay timi qoraalkii heshiiskii ay taagnayd yuusuf wuxuu yidhi dee ma lacag intaa leeg baa lagu khamaari karaya haddaan biyi intay leegyihiin aan la garanayn waxaa nala joogay isna oo markhaantiga ka mid ahaa maxamed saciid waxaan ku yidhi ma sheegi karaane ilaahay baa tala saaranay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in lagu guulaysto in lagu guulaysto aynu ilaahayna tala saaranaynaa hawsha waad gelaysaa igriimankana waad saxeexaysaa heshiiskana waad dhammaystiraysaa sidii buu aqbalay aniga laba farxadood bay ii taho dee marna marag baan ka ahaa marna waan ku dhiiriyey yuusuf inaanu walaacin ee hawshaa galo tiina waa lagu guulaystay aad iyo aad baan farxaan ugu ahay ilaahay baan tala saaray ilaahayna waa naga aqbalay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkaddana waxaan leeyahay allah idin barakeeyo wax wanaagsan baa meesha ka muuqta ceel dambena waa qodi doontaan ilaahay idinku wada guulayo khayr badan baa dhacay oo dhul badan oo oomana ahaabaa maanta laga cabbayaa aad baa u barakaysantihiin ilaahay waxaan tidiinaa idin barakeeyo yuusufna waxaan leenahay ceel lamaan in badan bay caagir ka soo dhaansanayeen ama booyad ceer gaabo ilaahay mahaddi weeye maanta hadday gurigoodii biyo macaan ku cabbayaan allah u barakeeyo yuusufna ilaahay khayra siiyo dembigiisana ha dhaafo allahna ha u barakeeyo baan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa ilaahay baanu mahad celinaynaa halka suuqeen keenay dhammaanteenba ilaahay baa mahad leh marka dambe waxaan u mahad celinayaa kambenigan ceelkan soo saaray iyo ninka hantiila ahaa ee ceelkan ku dhiiriday meesha inuu ka qodo maanta aynu gul ka joogno iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaanu halkan xafladda jooga maayarkii degmada salaadiintii oo boqor maxamed axmed u horeeyo shirkadda somdrinik oo cabdixakiin siciid barre iyo shaqaalihiisa dhammaan odayaasha kale waxaan ku salaamayaa salaatu salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa run ahaantii oo ugu ducaynaynaa ducooyi baanu haynaa mahadnaq waxaan u ducaynaynaa shirkaddan halkan qoday ee somdriin oo ceelal badan qoday somdriin oo ceelal badan ka qoday ceergaabo ama gobolka sanaagba ceelkii sideedaad bay marayaa dhul badan oo manaha ayaa biyo gaadheen aad iyo aad baa loogu liimaanay run ahaantii biyo badan oo tayale buu soo saaraa aad baan ugu mahad celinayaa kambenigaa waxaana leeyahay dadka ku dayda yuusuf cabditirike waa kaa ceelkaa ka soo saaray halkaa geesi jifeen la odhan jiray biyo macaan oo la kala xidho biyihii uyeerka ahaa ee qadhaadhaha waa la dhaafay waxaa la gaadhay biyihii macaanaa wuxuu ku yimi biyaha macaani waxay ceelka aan go'ayn weeye 48 saacadood soconaya aan go'ayn oo biyaha miidhana weeye dooxadaas oo oomana ana meel walba gaadhaya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runaantii yuusuf ilaahay ku barakeeyo aan leeyahay shirkadda qodana ilaahay ha barakeeyo kuna dhiirada dhammaan dadku inay biyaha la soo baxaan waa in dhulkeenna aaminno horumarka koowaad weeye biyuhu waa inu ku hodmayno waa inu kula tartamayno
ama dawlad ama gobollo kaleba aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.